haysta Yeah. Iya. Waiga haysa. Yeah. waxaan dhahay Soomaaliyeed waxaan idin sheegayaa horta waxaa jirto waxyaalaha qaarkooda aan la aamini karin oo afkana u qorin inaan ku tilmaamo dadkayga iyo diinteeda laakiin waxaan la huri karin waxay tahay in runta laga sheego wax walba ka dhacayo dalkii hooyo waan jecelnahay nabadda waan necebnahay dagaalka iyo dhiig sokeeyo inuu daato labada dhinac wiil Soomaali baa ku dhimanayo weerarkana waxaa ku fiican tahay in ay noqon afka kaliya marmarka qaarkooda ee gacanta laga hadlo taas awgeeda waxaan leenahay Soomaali dhammaan waa wiil iyo walaal waa waalid iyo wiil marka in la isku xadgudbana way xun tahay maanta waxaan ku jirnaa meeshii ugu xumeed ee dalkeena oo gaaro 37 sano ka hor ayaan u maleynaynay in aan ka xuroonay laakiin dib baa loo celiyay waa ka xunnahay dhammaan inta jecel nabadda iyo mustaqbalka Soomaaliya waa mid koowaad mid labaad waxaan ni sheegayaa in ay tahay dalku inuu u baahan yahay isbeddelkaasi tina oo noqdo isbeddel aan la iska daba soo noqonin in la dhaho maahan maanta waxaan joognaa meeshii aan Soomaaliya hore u socon lahayn dalkeena waa jecelnahay dadkeena waa jecelnahay diinteena waa jecelnahay laakiin waxa la huri karin waxay tahay dadka kooban ee u maleeya in kursiga iga bis loo suubiyay inay ku soo noqdaan jecel iyo dadka inay iska fadhiyaan jecel waa isku mid aniga waxaan jecelahay isbeddel doon qabiil uma danaanayo dad qaas uma danaanayo laakiin waxaan jecelahay nin walbo oo wax ku soo kordhinaya Soomaaliya waqtigiisa in la siiyo hadduu xaq alle ugu imaato aniga midkaan jecelahay in la heli doono uma maleynayo haddii la helno way ii dhacday oo aan arko wuxuu tari karo iyo wuxuu gudo laakiin waxaan jecelahay mar walbo inuu isbeddel dhaco isbeddelkaas oo keeni kartana in aan helno mase aan gaarno meesha ku suuban ee Soomaaliya inay gaarto aan rabno waxaan u socnaa horta waa dimuqraatiyana dheedheel laguma tago waana gaari doonaa insha Allah bilkariim ilaahna waxaa ka baryayaa in Soomaalida ay israacdo dalkana oo noqdo dal loo soo xiiso Happy